madfaca lagu garaacaya maatada oo ah cabsi gelinaya aargoosi waxaa loogu daray shabaq siyaasadeed oo meel walba loo dhigay islamarkaana la doonaya in lagu soo dababal mar kale inay ka mid noqdaan jamhuuriyaddii barakaysnayd ee kol hore ku dhawaaqday in ay madax bannaan tahay. assalaamu calaykum daawadayaal, kuna soo dhowaada wararka dhambaalka wararka. qodobada warkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey madaxweyne Siciid Deni oo iskaga tegaya magaalada Garowe xilli kulamo xasaasi ah ay ka socdaan magaaladaasi. kacdoon ka dhan ah xukuumadda xubno ka tirsan oo baarlamaanka laga qarxinayo ayaan idiin soo gudbin doonaa. Muuse Biixi dagaalkii iyo madficii markan waxa uu ku bedelaya qorshe siyaasadeed oo ah shirqool lagu raadinayo qaar ka mid ah xubnaha maamulka ACC markan hogaaminayo, kuwaas oo mansab sare loo ballan qaadaya. halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa duqeynta oo socota iyo sidoo kale xilka lagu dabayo markan. Xamse Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuudna markan waxay u gacan haatinayaan sidii ay kaga mid noqon lahaayeen dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada Garowe, bal in xal loo helo mushkiladda siyaasadeed ee ka haysata markaa dhanka Puntland ee burburinaysa deyn cafinta. Villa Soomaaliya sidee ayay u wajahaysaa markan mase qaadatay eedeymaha la xiriira inay qabuuraha magaalada Muqdisho ay ka ganacsanayso. magaalada Garowena waxaa ka socda kulamo xasaasi ah oo ay hogaaminayaan ra-iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya. waxaan idiin soo gudbin doonaa durbamo natiijada hordhaca ee soo baxday iyo sidoo kale ciidanka beelaysan ee magaaladaasi soo buuxu dhaafinaya. weli muuqaalka shargareeba falowdha beyjka si aad kaga mid noqotid saaxiibada halkan kuminaanka ee ku xiran. ana ku bilowna wararkii ugu dambeeya dhambaalka wararka. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa markaan waxa uu isticmaalayaa shabaq siyaasadeed oo adeeg oo ka gedisan kii hore, islamarkaana lagu doondoonayo xubnaha ACC iyo sidoo kale hartida hubeysan ee ku sugan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. wararkan helnay ayaa xaqiijinaya in madaxweyne Muuse uu go'aamiyey in isbeddel lagu sameeyo awood qaybsiga guud ee Somaliland, iyadoo weliba la doonayo in la isku bedelo gobolada Awdal iyo Sool. waxaana qorshahan dabada ka riixayo xubno sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Biixi, si looga fogaado in Somaliland ay ku guuldareysato hankii iyo higsigii ay ku baadigoobaysa aqoonsi caalami ah, islamarkaana 32 sano ee lasoo dhaafay ay dabada ka riixaysay. ayaa la bilaabay qorshe kulmiye dhexdiisa looga abaabulayo in la bedelo kursiga madaxweyne ku-xigeenka xilligani jooga ee Awdal, islamarkaana waxaa lagu bedeli doonaa gobolka Sool, iyadoo weliba kursigaasi la doonayo in loo doorto islamarkaana uu noqdo mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada ACC, iyadoo weliba la xaqiijiyey in arrintaasi ay doonayaan madaxweyne Muuse iyo sidoo kale xubnihiisu inay u maraan isbeddelkeeda maxkamadda sare iyo sidoo kale hay-ado kale oo la doonayo in sharciyan loo maro oo lagu xalaaleeyo, si dhulbahanta dib loogu helo islamarkaana si degdeg ah loogu helo in uu dib u soo laabto. ayaa la doonaya in saylici meesha laga saaro islamarkaana lagu bedelo siyaasiyiin muhiim ah oo ka soo jeeda gobolada ACC. waxaana maalmihii ugu dambeeyey harbeytan ka waday magaalada Hargeysa ee xubno ay ka mid yihiin Yaasiin Xiriir Faratoon iyo sidoo kale Mahad Cabaashe iyo xubno kale, kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo xubno kale oo ka soo jeeda ACC, kuwaas oo doondoonaya kursigan. sidaan xogta ku helnana madaxweyne Muuse ayaa waxa uu u ballan qaaday siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi inay si degdeg ah u heli doonaan xilka madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, iyadoo weliba xilka guddoonkana ay markaan beelaha kale u wareegi doonaan, maadaama awoodda xukuumadda iyo talada kale ee golaha fulinta ay iska dhex waayeen oo ay u arkeen in talada iyo tillaabooyinka lagu weeraray deegaankooda ay iska lahayd xukuumaddu. mar kale ayayna u dhabar adeegaysaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi sidii ay arrintaasi isbeddel ugu samayn lahayd. inkastoo xubnaha xisbiyada mucaaradka oo dhankooda xiriir la sameyna ay sheegeen in arrintaasi aan wax sharciyada loo haysan, maadaama madaxweyne ku-xigeenka cod bulsho lagu soo doortay, islamarkaana aynan haba yaraatee isgeynin, iyagoo weliba sheegay in beesha ku fadhida ay iyaduna tabasho badan ay ka qabto xilligan maamulka madaxweyne Muuse Biixi. dhinaca kalena waxaa weli sii soconaya duqeymaha sida tooska loogu garaacayo magaalada Laascaanood, iyadoo weliba saacadihii ugu dambeeyey dhoolotus ballaaran
ay ciidanka Muuse Biixi ka sameynayeen bariga iyo galbeedka magaalada kadib markii 3 sarkaal oo madaxtooyada laga soo diray ay maanta soo gaareen subaxnimadii hore jiidda hore ee ciidanka iyagoo weliba qiimeyn ku sameeyey halka jahwararku ka jiro ee ciidanka militariga Somaliland ay kaga taagan tahay arrinta la xiriirta in aynan si degdeg ah u qabsan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Xogtaan helnay ayaa waxay muujinaysaa in saraakiishu ay soo jeediyeen in madaxweynuhu uu isbeddel ku sameeyo talisyada ciidanka. dhinaca kalena waxaa safar degdeg ah iskaga baxaya magaalada Garowe madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni kaasoo safarkiisa ku tegaya mid ka mid ah dalalka Carabta. Socdaalkiisan ayaa ku soo aaday xilli magaalada Garowe caasimadda Puntland ay wajahayso xiisad siyaasadeed iyo sidoo kale mid ciidan. Siciid Deni ayaa la aaminsan yahay inuu doonayo inuu iska fogeeyo tab walba iyo qaab walba oo ay kula kulmi karaan siyaasiyiinta iyo sidoo kale ismada Puntland ee dhexdhexaadinta wada, isagoo weliba horey u sheegay mowqifkiisa in ay xukuumaddu doonayso wada hadal iyo nabadgelyo in lagu dhameeyo, balse ficilkiisa lama arag oo waxaa bedelay in ciidanka loo adkeeyo gurmadyo kala duwanna laga helay gobolka bari islamarkaana aan la fulinin dhammaan wixii soo jeedina oo ka yimid dhinaca mucaaradka kuna aadan sidii xiisadaasi looga takhalusi lahaa oo dagaalkan loo soo gaabin lahaa. Waxaana xogta aan helna ay muujinaysaa in madaxweyne Siciid Deni uu iskaga tagayo magaalada Garowe isagoo kusii jeeda magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa ah waddan ka taageera ciidanka BNPF ee uu adeegsanaya madaxweyne Siciid Deni, waxaana la aaminsan yahay in uu dowladda Imaaraadka uu la kulmi doono sidii ay u xoojin lahayd taageerada ciidanka iyo sidoo kale taakulaintooda. waxauna marka hore sii mari doonaa dalka Itoobiya oo uu doonayo inuu halkaa kula sii kulmo saraakiil iyo diblomaasiyiin ka soo jeeda wadamada kala duwan ee Kenya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. markaas ayuuna si toos ah Imaaraadka ugu gudbi doonaa. Deni ayaa sidoo kale dowladda Itoobiya ka dalban doona inay xoojiso taageerada ciidanka iyo tababaradeeda iyadoo weliba sare u qaadaysa qaab walba oo ay ku taageerto ciidamada qalabka sida ee Puntland. waxaana la aaminsan yahay in safarka madaxweyne Deni uu yahay mid uu kaga raatiranayo in ay la kulmaan siyaasiyiinta iyo xubnaha kala duwan ee xurgufta ay kala dhexayso ee qaarkood sheegay in ay dhexdhexaadin u tageen magaalada Garowe, kuwaas oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo sidoo kale Cabdiweli Gaas iyo sidoo kale Cumar Cabdirashiid ayaa magaalada Garowe ka wada kulamo ballaaran oo ay xal ugu raadinayaan xiisadda cakiran ee ka jirta magaaladaasi. inkastoo ay yihiin isbedel doonayaal doonaya in isbedel Puntland uu ka dhaco, arrintaas aynan haba yaraatee farxad gelin doonin, haddana waxa ay u tageen magaalada Garowe sida ay u muujin lahaayeen aragtidooda siyaasadeed iyo sidoo kale midooda bulsho, iyagoo weliba doonaya in ay si toos ah u cabiraan arrinta laysku hayo ee ku aadan waddo kordhinta iyo furista dastuurka oo ay doonayaan inay hor istaagaan. labadan siyaasi ee ruugcadaaga ayaa la xaqiijiyey in Maraykanka iyo meelo kala duwan ay kaga soo ruqaansadeen si arrintaasi xal loogu raadiyo islamarkaana daaqadda looga saaro, iyadoo weliba ay si toos ah u cabiri doonaan tallaabooyinka la xiriira in xal waara oo degdega loo helo xiisadda ka taagan magaalada Garowe ee furista dastuurka. gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa dhinaciisa isaguna ka meermeeraya in uu la kulmo madaxdaasi, iyadoo weliba uu ku adkaystay in uu yahay shaqsi ku taagan hay-adda sharci dejinta iyo sidoo kale go-aanadeeda. ciddii baarlamaanka u baahan waa inay timaadaa hoolka, waan ku soo dhoweynaynaa ayuu yidhi, iyadoo weliba xildhibaanadu ay si wadajir ah u qaabili doonaan, balse ma jiro kulamo gaara iyo sidoo kale arrin gaara oo aan kala hadlayno siyaasiyiin. marka lagu soo daro ajendaha kulanka baarlamaanka oo xildhibaanadu ay ogolaadaan ayay nala kulmi karaan siyaasiyiinta, taasina waxaa la aaminsanayaa inay tahay qorshe albaabka looga xirayo xubnahaasi. dhinaca kale Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagana waxaa ka guuxaysa inay ku biiraan dhaqdhaqaaqyada Garowe si Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka la iskugu soo dhoweeyo, sidoo kalena xal loogu helo xiisadda Garowe ka taagan, maadaama Puntland ay hor istaagtay qorshihii deyn cafinta waddanka ee ay ku xirnaayeen maalgashiga iyo sidoo kale horumar Soomaaliya u qaado xagga maaliyadda. waxaa arrintaasi Puntland ay kaga horgoosanaysay dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama ay sheegtay in aan deegaanada Puntland lagu lahayn wax deyn ah. dhinaca kale markaan eegnana
villa Soomaaliya miyay qaadatay eedaymihii la xiriiray inay ka ganacsato qabuuraha magaalada Muqdisho? Waxaa magaalada Muqdisho muddooyinka la soo dhaafay walwal xooggan bulshada ku hayay qabuuraha Macalin Nuur ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, halkaas oo dadku ay bilaabeen in ay kala baxaan lafaha iyo meydadka dhowaan la aasay, kuwaas oo loo daabulay meelo kala duwan kadib markii cagaf-cagafyo baaldoosaro la qaatay islamarkaana la bilaabay in dhulkaasi la cabirto. Waxaa horey u soo baxday eedeyna in villa Soomaaliya ay ka dambeyso dhibaatadan walaaca badan abuurta iyo sidoo kale falkan foosha xun, iyadoo weliba arrintaasi ay si toos u dul hoganaysay maamulka gobolka Banaadir, madaxweyne xasan sheekh maxamuud, wasiirka diinta iyo awqaafta, arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiin kale.